And I know you won't be able to pronounce my company's name, but you can just try it. Try it. Qurxinta Guryaha. Just want to know if you guys are happy with everything that we've done for you guys. Of course we are. We're absolutely over the moon. Abdi's done such an amazing job at such an amazing price. He was probably the best quote that we got in London and the 100% the best quality. His attention to detail is amazing. sababta ay customer-kaygu ama macmiishaydu happy u yihiin ay u faraxsan yihiin waxaad ku arki doontaan fiidiyogan oo aan idin tusayo markii hore gurigu sidoo ahaa iyo markaan dhameeyay sidoo noqday daawasho wacan kulleen hurdo hallowday danta sidaad ku heshaan walaalayaal badanaa waxaad daawataan showyada maxay tahay TV-ga laga soo daayay ee guryaha dib loo qurxinayo ama dib loo dhisayo dib loo dayactirayo refurbish lagu sameeyo gurigana aragtaan waan plaster gareynaya halka carpet-kii baan ka qaaday carpet cusub baan dhigaya flooring waa vanish gareynaya waxaan ka soo saarayaa heer ka qurux badan heerka television-ka daawataan halkan aad aragto waan design gareynaya firehouse cusub heater-kan saaraya plaster cusub decoration cusub hanaga tagin adigoon subscribe noo saarin channel ilaahay subscribe kugu geeyay qolkii fadhiga waynu soo dhaafnay imka waxaan marnaa qolkii cuntada oo aad aragtaan oo yaalaan magarasa alaabtaydii oo diyaar ah imka plasterka ku hor bilaabo halka waan xidhayaa dabka waan wada plaster gareynaya derbigo dhan kadib waxaan doonayaa inaan ka soo saaro gurigan nooc kale waxaan ku iri ka soo bax waxaad soo galaysaa kitchadii waad aragtaa color xun baa marsan oo casaana gabigeedu baan cadaan ka wada dhigan rabaa cabinet kan aan jajabiyay cabinet cusub ugu xidho worktop cusub ugu xidho tiling aan saa u mariyo xagga dusha ma garanaysaa halkan markaan socono waa staircase ka dhan waan hagaajinayaa gabigeedu nooc kale ka soo saaraya waad arki doontaan wali walba markii baan ka jarayaa oo runtiisa hadda u egtay aad bay fool xun tahay laakiin markaan shaqada dhameeyo videogan dhamaadkiisa waad arki doontaan daaqadan waxaan waa vanish hadda laakiin waxaan rabaa inaan ka dhigo satin wood cadaan ka dhigo si ay u raacdo staircase-ka iyo skating iyo meelaha heater-kan waan saarayaa saad aragtaan halkan markaan nimanka toos u socono waxaynu soo arkaynaa suuligii baynu arkaynaa musqushii kalarkaasaan marinayaa inta loox oo dhan inta kale oo dhan cadaan baan ka dhigayaa siilinka raacinayaa si ay isugu soo baxaan xataa albaabada iminka waxaad galaysaa markaad ka soo baxdo qolka ugu horeeya waa qolkii carruurta hurdada qolkan waxaan ka dhigayaa kalarkaas hadda aan gacanta ku hayo waxaan ka dhigayaa cadaan inta kale oo dhan albaabada iyo siilinka iyo frameada iyo albaabadan kale ee meesha kabadhada garanaysa ku jira heaterka waan saarayaa skatika cadaan markaanu ka soo baxno hadda waxaynu soo galaynaa waa main bedroomkii ama qolkii hurdada waxaan ku waa meesha ugu muhiimsan guriga waad aragtaan blogyadeedu waxay baan soo saaray si aan magaranaysaa u bilowdo shaqada xoqitaan badan baan sameeyay waxaan sameynayaa halka iyada inaan patching badan plaster ma marinayo laakiin patching ayaan marinayaa ama buuxbuuxin iyo xoqitaan badan saad aragtaan daaqada waa tii bariga hore tusay albaabadan waan cadaynayaa waxaan ku iri qolkan imika aynu soo galnay waxa weeyaan qolkii hadii ilaahay idinkeeda leeyahay muxuu ahaay uu rabay inuu office ka dhigto ninka guriga iskale oo dhaqtari marka isagana nooc kale ka soo saaraya daaqadan cadaan baan ka dhigayaa heaterka waan ka saaraya mid cusub baan u gelinayaa albaabada waan cadaynayaa siilinka waan cadaynayaa skatingka waan cadaynayaa dhulka roog baan dhigayaa markaynu ka soo baxno halkan saad aragtaan daawadayaal waa hallway-gan aan ku bilaabay inaan ka jaro inta yara hadhay dabeetana meeshan nooc kale baan tusaya eesh cala hanaga tagin adigoon subscribe noo saarin channel ilaahay subscribe kugu geeyay imikana waa gurigii oo dhamaaday daawadayaal bal haddaba saan u bedelnay daawada illeen samirka ma gaboodid haddaan fiiriyooni bugeenu ka samaadii aroos leyno gangaamiyey daawadayaal saad aragtaan badee hallway-ga horta nooc uu eeg yahay miyaa gurigii la moodaa wadi bal videoga dib uga ceshada hadda doonsan aragtaan say ahayd eesh calaabaan ku yiri waa the highest level highest finish imika halkan waad arkaysaan eesh cala waa qolkii fadhiga derbiga fadhigaas waxaan ku waa la isku eegyahay war fireplace-ka TV-ga allah eesh cala waa interior designer baan ahay also so waan u design gareeyaa dadka intaanan wax marinin waan ka caawiyaa yani idea ahaan siiyaa sidan ka dhiga ama saa ka dhiga oo waxaas ku soo baxaya oo kale iyo wixii advice waan siinayna laftarkeeda insha Allah taala online oo haddaan shaqadeyn qabanno labadaba daawadayaal saad aragtaan daaqadiina cajiib baan ka soo saaray cadaan fireplace cusub daaqadii kale cadaan skatingka meel kasta baan ku TV-ga iyo waxaan ku voice wada match gareynaysaa ma sha Allah waxaan ku miiskii yaraa meesha la dhigay iyo flooring way match gareey flooring waan vanish gareeyay waxaan ku waan
gebigiis machine baan isticmaalay oo lagu magaranaysa lagu xoqo kadibna waan vanish gareeyay de waxaan ku yiri eesh calaabaan ku yiri meeshii waad aragtaan say noqotay baan u maleynayaa ka soo baxay marka qolkan waa fadhigii halka yar iyada waa touching-kii touch up yar baa harsan marka touch up kaasan goor ku sameeyo caadi laakiin se waxa iyagu waa perfect waa high standard even inta imperfect ahayn waa inay tusaas oo kale oo idii sheega waad aragtaan baan u maleynayaa spindleski eesh cala kijadii imika bal mise qolkan aynu galnaa horta qolkani waxa weeyaan qolkii aan markii lahaa qolkii cuntada bal u fiirsada walaalayaal siday tahay eesh calaabaan ku yiri maasha Allah saad aragtaanba meeshii dabkana waa adiga soo waan xidho waad aragtaan skating ka yarun baa imika hadhay inaan jaro oon ku dhajiyo iyadu micno badan ma laha daaqadii waad aragtaan cadaama ka soo saaray de qolkii gugeenna waa ka samaale gaxdi nafsi aynu maalay gugeenna waa ka samaadii aroos layno hanaga tagin adigoon subscribe noo saarin jannada ilaahay subscribe kugu geeye daawadayaal haddii aad ka soo baxdo oo aynu qolkan ka soo baxno weydii ka arkada qolkani waa eesh cala albaabka frame-ka waxaan ku yiri meelaan nuurin male waxaynu imika soo galeynaa waa qolkii maxay waa kijadii weeyaan kijadii aan markii tusay eesh cala waad aragtaan waxaan ugu xidhay kijo cusub waxaan ku yiri waad aragtaan derbiga iyo ceiling-ka iyo skating meel kasta cadaan baan ka dhigay si meeshu ay u noqoto spacious amaba meel weyn ay ka dhigto waad aragtaan waxaan ku xidhay marmar waxay tahay white tiles with black grout marmar cad iyo grout ka dhexda mariyo madow iyo alaabtii dambe lagu xidhayo madow isku soo wada baxaysa marka meeshan waxa ka socda baan ku yiri cajiib worktop-ka waan vanish gareeyay laftarkeeda waan rinjiyay oo noocaas ka soo waa wood iyadu waa loox de waxaan ku yiri eesh cala meeshii baad moodaa meeshii casaankiyo kalarada foosha xuni markii hore marsanaayeen oo imika san u eeg waxay runtii kugu noqonaysaa inaad u qaadan weydo de waxaan ku yiri maasha Allah halkan markaad soo martaan albaabadii wax kasta waa dhameystiran halkaas waa iyadu waa iska yara storage-kayga oo aan alaabta iska dhigto ma garanaysaa wixii aan ka farabaxo dhan san markaad u soo socoteed soo dhaaftay waxaad soo galaysaa hallway-gii eesh cala hallway-gana horta anu ku haystaaba de waxaan ku yiri hallway-gu waa ishii waa indhihii guriga saad aragtaan ba kaarbad cusub aanu stair-kii dhignay soo ma aragtaan kaabadii waxaan dhignay baan ku yiri mar walaalayaal saad halkan ku aragtaan horta waxaan gacanta halkaa idinku taataabanaya idin tusayaa wadankii shirkadaha ka jira videoga degdeg bay u magaranaysa u dhaqaajiyaan si aanay idin tusin perfectionka amaba shaqadoodu inay imperfection leedahay wax xun leedahay oo aanay perfect ahayn anu waxaan tusayaa slow motion because I know anigu waan garanayaa inaan ahay adduunka dadka ugu fiican ka mid ahay marka waxay waa 100% waad aragtaan walaalayaal wixii magaranaysa aan touch up ku sameynayna dawaaniga idin sheegay waxaas touch up wali u baahan yahay staircase-ka waad aragtaan tusaale siinaya staircase-kan walaalayaal marka dhameeyay ceiling-ka iyo darbiyada iyo wixii dhan daaqadihii intaanan looxan bilaabin skating-ka hoostan sameeyay bahashan vanish-kan ku celiyo vanish fiican mariyay halkan makan taabanayo deetana spindles-kan sameeyay roog wuxuu ahaa wixii ugu dambeeyay meeshaan dhigayay waayo waxaan diidayay in magaranaysa goodhow in yar ka tagtay halkan yar oo imperfection iyo wax ka taabtay roog iyo xaas de say isku soo baxaysa weydii ka arka maasha Allah hanaga tagin adigoon subscribe noo saarin jannada ilaahay subscribe kugu geeye haddaynu kor u soconno waxaynu arkaynaa staircase-kii markii hore aynu soconay foosha xumaa waad aragtaan spindles-kan waxaan ku yiri waan ku farayareystay iyaga cadaan baan ka dhigay iyo magaranaysa kalarka garanaysa mahogany-ga vanish-ka waxaan ku yiri ceiling-kii cadaan kalarka derbiga marsanay cadaanka uu ka yara duwan yahay just slightly off white weeyaan in yar buu ka yara duwan yahay daaqada cadaan baan ka dhigay oo satin-kiya waxaan ku yiri eesh cala wadiga arka markii hore aan idin taabanayay waa tii casaankii yaray foosha xumayd ahayd walaalayaal saad view-gani markaad aragtaan ama aragtida hadda aragtaan halka markaad ka daadegayso kaabada de guryihii celebrity-ga ayaad moodaa ma garanaysa ay ku noolaayeen dadka celebrity-ga heesa halkan markaad imika soo dhaafto ee soo yara socoto waxaad arkaysaa heater-kii oo bedelay meeshii kale staircase-kii intii dhulka oo dhan oo dhigay ma garanaysa roog ceiling-kii oo cadeeyay oo qurxiyay ما شاء الله تمشي دان فيوجي اسكو soo baxaya mid nooc kala ah waxaan ku yiri seen markaan u socono waxaanu galnaa musqushi wata dhulka waxaan dhigay shamacaas quruxda badan inta kale waxaan mariyay kalarkii bluega ahaa dusha mooyaane way kala go'ayaan kalaradu saad aragtaan cadaankii baad deetana bilaabmaya kadib waa perfect daaqadii cadaan wax kasta baan ku yiri albaabadii cadaan da way isku soo wada baxaysaayo eesh cala weeyaan ma garanaysaa marmarka xataa meesha mashana cadaan weeyaan halkan lagu meedhanayo way area-da haddii ilahay idinkeed leeyahay de wakaa dhag waxaan ku yiri gebigeeduba waa 100% albaabka waxaan ku yiri waxaad moodaa brand new door markii hore wuxuu xabad yar oo ila meeraysaa ma garanaysaan
marka imika markaad aragtaan levelkani waa highest level ka soo bax waxaynu gelinaa qolkii imika markaynu hallwaygan aan yara tuso bal hallwaygan waxaan tusayaa eeg dhinac kastood ka eegtaba waa 100% qurux weeyaan xaggan markaad ka eegto eeg spindleska saa markaad u eegto so brand new house lama moodo guri cusub oo hadda faraha laga qaadun baa la moodaa waxaan walaalay idin sheegaya gurigiina idinkoon ka guurin baa dib u cusboonaysiin kartaan laakiin waa shirkad ama dad xirfadeedo kale leh hataa xitaa weedan dad xirfad fiican u keentaan at least oo aydan cheap lacagta yar eegin qolkan imikaanu soo galnay waa qolkii hurdadii carruurta waanigii tusay kalarka marinayay wakaas oo aan mariyay dusha seelinkii cadaan albaabadii cadaan saan idin sheegay markii hore maxay tahay albaabadii gudaha kabadhada iyo albaabkii mainka ahaa iyo daaqadii heaterkii waanu bedelnay heaterku inuu little bit kalarka darbiga marsan u yaray kaadaan dooninay so that's exactly waxaan sameynay sarrita xataa go-eed iyo waxeedii waa iska damagaraysa kalarka meesha match gareynaya seelinka iyo albaabada sarrita waxa la dhigay waad aragtaan cadaan iyo kalarka kale slightly off magaranaysa marka walaalayaal sad halkan ku aragtaan ba interior designing ayagu xataa rooga iyo kalarka darbiga marsan waa isku soo dhawaanayaan yani sana wax loo design gareeya guryaha gasho maaragtay khatarta u eeg waa dad waxay sameeyay magaranaysa runtii lacag galiyay marka ka soo baxdid waxaad imanaysaa the main bedroom waxa weeyaan gurigii halkii islaantii odayga gabadhiyo ninka magaranaysa wiilkii gabadha waxaan ku iyadoo aan ku fariiraysto daaqadaasi waa taan markii tusayay barigii anigoo cadeynaya te waxaan ku yiri eeshcala waadiga arkasay imika way eg tahay gurigii oo dhan inta kale idmaan tusin skaatika cadaan ma ka dhigay seelinka cadaan waxaan ku yiri te meeshu eeshcala te saritoodii waa kuwa soo dhigtay waxaan ku yiri ma garanaysaa darbiga kalarka imika go-ay xataa ku xidhan darbiga uu soo yara match kareynayo saad halkan ku aragtaan walaalayaal saritii waxay soo dhigteen cupboard yar oo halkaas yaalo oo sarita isaguna u yara this is interior designing waa noocan waa inaad maskax la yara timaadaa ma garanaysaa oo qurxinta guryaha micnaheedu waa noocaas ma ahun shaqada qabo inkastoo anigu aan ahay qof builder shaqadii isagu gacantiisa ku qabanaya haddana interior designing kana waa ku darsaday si aan heer sare u noqdo hanaga tagin adigoon subscribe noo saarin jannada ilaahay subscribe kugu geeye haddii imika aynu ka soo baxno halkan oo aan idin soo hortay intayna ka bixin albaabkiina waad aragtaan baan u malaynayaa eesh cala albaabada guriga albaab kasta iyo frame kastaba brand new baan ka soo saaray brand new mid cusub oo imika lagu xidhaad mudda halkani walaalayaal waa qolkii aan idin lahaa inanka dhakhtarka ah iyo gabadhu waxay doonayaan ka dhigtaan office dee bal eesh cala ila eega idinku telefishinkun baa ka daawataan ama google un baa ka eegtaan sawirada noocan oo kale ah waa highest level of painting and decorating in the world waad aragtaan the best interior designing ideas ayaanu haynaa anagu haddaan nahay qurxinta guryaha daawadayaal saad aragtaanba wax kasta way isku soo baxayaan muxuu ahaye dee alaabtiisii daaqadii waad aragtaan baan u malaynayaa hiitarkii waan ka bedelnay waxaan ku ihi meesha miyaan dee wadaa un sheekada gugiini waa kaa samaade gaxdii nafsi aynu maalinay balan ku yaro tuura hortay gugeenni waa kaa samaadi gaxdii nafsi aynu gugeenni waa kaa samaade gaxdii nafsi aynu maaley daawadayaal waxaan rajaynayaa marka qurxinta guryuhu guri idiin samayso sa reerkan oo kale saa wada dhalaalaya marka ka maqantiin inaad qaadi doontaan gurigiiba ii baaqayo uhiloobayay weli adiga baxnuur ayo daawadayaal saad aragtaanba waxaan idin tusayaa intan oo slow motiona eesh calaaya imika hoostaynu u daadegaynaa waxaan idin idhi aad baa u mahadsantihiin subscribe ii saara imika waxaan tegayaa hoos baan idin tusayaa kadibna waxaan idin maqashiinayaa qofkii guriga lahaa oo gabadhii imika ay joogto uu maqan yahay wiilkii dhakhtar St Omens maxay adigu wuxuu ka shaqeeyaa hospital Central London uu dhakhtar ka yahay marka waan idin tusi doonaa gabadhu inay happy ku tahay shaqadeedii oo ma garanaysaa feedback ay bixinaysa indhihiina ku arki doontaan imika waad aragtaan meel kasta waan dhameeyay touch up yar oo meesha yareeda halkaas oo kale aheen idin tusayay baa harsanuun dee saas iyo nabaday subscribe tana hanaga iloobina aad baa mahadsantiin family-gin iyo dadkana kusoo xidha channelkayga jazakallahu khair just want to know if you guys are happy with everything that we've done for you guys Of course we are. We're absolutely over the moon. Abdi's done such an amazing job at such an amazing price. He was probably the best quote that we got in London and the 100% the best quality. His attention to detail is amazing. 100%. Thank you very much. And I know you won't be able to pronounce my company's name, but you can just try it. Try it. Qurxinta Guryaha.
وهندون قنية. Okay, don't worry about that. Thank you very much. Okay, there we go. So that's it then, guys. وكنتونا يا ذيكنا دردا عندي إتاني نفتاكو دياري دادكا كوانكا دوردو سبسكرايب باليسات إندين دررررررر بام بام برارا سبسكرايب باليسات إندين دررررر حدمن